kulanti waxa saaxiibayaal halkan waa Kahiye Media iminkan markan wararkii ugu dambeeyay ee dhaawaca gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho wararka ugu dambeeyay ee soo gaaraya ayaa sheegay in gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariisow isaga iyo sidoo kale 10 qof oo kamid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii shalay lagu weeraray xarunta dawladda hoose ee Muqdisho loo qaaday dawladda dalkaasi Qatar diyaarad nooca ambulance ah oo laga leeyahay dalkaasi Qatar ayaa daqiiqada ka hor ka soo digtay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde Airport ee magaalada Muqdisho waxayna qaatay 10 dhaawac oo ku jira gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariisow wararku waxay intaas ku darayaan in haweeneyda gudoomiyaha ka ee degmada warta nabadda ee gobolka Banaadir Zainab Xaabsay iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ay qayb ka yihiin dadka la qaaday xitaa waxa warar hoose sheegayaan dadka la qaaday oo qayb ka ah gudoomiyaha degmada Xamarweyn ee gobolka Banaadir walow wararkaasi ilaa iyo haatan la xaqiijin 10 dhaawac ayaa wararka ugu dambeeyay xaqiijinaya in la qaaday iyadoo duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariisow oo qayb ka ah dadka qaba dhaawacyada halista isla markaana qaybaha sare ee jirkiisa dhaawacyo halis ka qaba loo qaaday dalkaasi Qatar waxaana la sheegayaa in diyaaraddu ay ku xirnaayeen qalab kala duwan oo dhanka caafimaadka ah iyadoo wararkuna ay intaasi sii raacinayaan in diyaaradda gudaheeda lagu sii daweyn doono inta loo sii wado dalkaasi Qatar diyaaradda ayaa la sugayay saqdi dhexe xalay balse waxay dib u soo dhacday iyadoo soo gaartay galabnimadan saaxiibayaal isha ku haya wararka warbaahinta Kahiye Media si aan kugu soo gudbino xogtii iyo wararkii ugu dambeysay haddii aad channelkan ku cusub tahay ha mogaan inaad saarto subscribe waad ku mahadsantahay daawashadaada nabadgelyo.